وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan mar kale waxaa kusoo dhawaanaysaan channelkeena Heal Soft oo runtii aad kala socotaan barnaamijyo ku saabsan dhinaca culumta tiknoolajiyada iyo macluumaadyo ku saabsan arrimaha bulshada. qaybtan waa qaybta tiknoolajiyada. arday ayaa inta badan waxa ay soo weydiiyaan marka ay computerkooda sida hadda aad arkaysid computerkan waxaa ku jiro Windows 11 ku install garaysan operating system-ka marka inta ugu badan marka ay ardaydu ay sida wireless ay ku xiran yihiin oo kale oo wifi ay haystaan sida dirtaan shaashada ka muuqata hadda kan oo kale wuxuu ku xiran yahay network uu magaciisu yahay BT soo marka wuxuu u baahan yahay in uu ogaado passwordka sida arkaysa hadda hal mar ayaad passwordka gelisay oo aad connect tiri marka aad ku xirto waxa u baahan tahay sidee ku ogaan kartaa marka passwordka marka casharkan wuxuu ku saabsan yahay sida aad ku ogaan lahayd Windows 11 passwordka ku helayd maxaa sameynaysaa marka haddii aad search box-ka aad ku dhufato control panel qor control panel ku soo baxayo marka aad ku dhufato click aad ku siiso waxa ku soo baxayo dhammaan control panel application-ada ku jira marka haddii aad fiiriso meesha ay ku qoran tahay network and sharing center ku dhufo casharkan aad ayuu u fudud yahay marka kadib waxaad arkaysaa meesha ay ku qoran tahay wifi magaciisa soo marka aad ku dhufatid kali ku siisid waxa ku soo baxayo stateskiisa waxaad u baahan tahay marka inaad ogaatid waa passwordka halkan meesha ay ku qoran tahay wireless properties ku dhufo kadibna qaybtan ayaa ku soo baxayso waxaad hadana ku dhufataa qaybtaas tabka meesha ay ku qoran tahay security kadib marka security ku dhufatid waxa ku soo baxayo meel uu passwordku ku qoran yahay uu ka qarsoon yahay marka tirtiray marka safe maana dhihin security ayaa leedahay halkan ay ku dhufanaysaa kadib ku soo baxaa passwordkaas ku soo baxaa marka waxaan u maleynaa casharka inaad fahamteen aad ayuu u fudud yahay sida aad ku ogaan lahayd markaasi passwordkaaga dhammaan khiyaarta channelkeena ku cusub waxaan rajaynayaa inaad subscribe saartaan lana wadaagtaan asxaabtiina aad ayaa u mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.